halkan aan ku sugannahay waa magaalada Ceel Sheekh waxaan halkan ku qaadan doonaa 24 saacadood ee soo socda Ceel Sheekh waa mid ka mid ah xeebaha ugu qurux badan dhulka Soomaalida milgiyo sharafaad mutaysatayo marley magacaad wadaagtaano muquuna haween muglaataaye milgiyo sharafaad mutaysatayo marley magacaad wadaagtaano muquuna haween muglaataaye xalay baan halkan nimi xalay baan halkan seexanay saaka oo dhan waanu joognay hadda saacadu waa 6 iyo barkii subaxnimo mar dhaweyd baan soo kacnay sidoo kale halkan waxa weeyaan quraacdii baa ku diyaarsan halkaas waa beaniskii waxa weeyaan halkanna waa beerkii waxa weeye waxa noo diyaarisay eedaday waxa weeyada noo sii diyaarisay maanta oo dhan halkan aanu joogi doonaa halkan neef baan ku qalananaa waqti aad iyo aad u fiican ma halkan ku qaadan doonaa nala socdaa idin leenahay marley magacaad wadaagtaano muquuna haween muglaataaye markan sidaa u quraacana waxaan tegaynaa badda waan dabaal tegaynaa neef baan qalanaynaa waxyaabo fara badan activity fara badan oo kala duwan baan sameeynaa nala socdaa idin leenahay Ceel Sheekh aniga waa markii labaad aan imaado markii hore aan imi jawigu ka duwanaa sidan oo qabow ahaa hadda laakiin waxaan ku soo beeganay bishii 6aad oo xoog u kulushahay subaxdii laakiin jawigu waa caadi ma sha Allah in yar la yara dhacaysa waan quraacanaynaa waxa la sugayaa tiimkii kale oo charger raadsaday magaaladu laakiin internetkeedu uu shaqeynaya waxa ku fiican tahay magaaladani internetku waa highway life baan soo galeynaa hadda saad arkaysaan waxa weeyaan waa beaniskii يا بيرك يلا اسكو دخ دري يلا خوخدي aniga waxa la yiraahdaa Khadra Aadan Soofe magaalada la yiraahdo Ceel Sheekh ayaan in badan aalay waan ku dhashay dadana waan ku soo gaaray maqaaxidaasaan leeyahay waa dalxiisayaasha ay yimaada cuntadaan u kariyaa dhaylaha haday doonayaan huuris haday doonayaan halkaasaan ku noolahay lambarkaygu waa 4792274 magaaladu waa magaalo kulul aad u kulul waa xagaa waa bisha ugu kululeyd u siiga badan aad badan bay leedahay biyo qaboobaan iibiyaa waxa weeyaan dalxiisayaashu aad bay noogu yimaadaan ee wixii baahan halkaas uu igu soo hagaagaya saad arkaysaan gaarigii baan naga galay annagu kanaan wadanay gaarigan kale naloo soo kaxeeyay oo waxa weeyaan isagana la rabay inuu naga saaro isaga laftiisina uu galay nimanka madaxda baa nala shaqeynaya maxaa leediin waxa la ilaahay nala garab qoran ku astro ilaahay nagu astro meesha ka saar waxa ba labadaba aye kabax haye waa ka saarnaa ilaahay waa nala garab galay kan baa noo dhiman insha Allah kanna waa ka saarnaa ugu dambeyntii waanu ka saarnay waxa weeyaan gaarigaygu waa halkaa yaala waxa weeyaan tuuladu waxay noo jirtaa ilaa 3-4 kiiloomitir marka hore waxaan sameeyay uba lugeeyaba haduu gaarigu ka bixi waayo laakiin waxa weeye ciidan baa ilaahay noo soo diray nimanka halkaas sii socda halkan imika soo gaarnay waa badii weli baanaan qadayn halkan imika markaan ku yara dabaalanno aanu ku gaajoonno ayaan waxa weeyaan qadaynaynaa sidoo kale dabaashu gaajay leedahay waxa weeyaan xeebtani waxay ka mid tahay xeebaha ugu quruxda badan Soomaaliland laakiin dadku aad iyo aad uma yimaadaan sababtoo ah waxa weeyaan waqtigan oo kale waa waqti xagaaya oo ay aad iyo aad u kulushay ninkan waxa la yiraahdaa Sallo oo garanaysan oo ciyaartay Sallo wuxuu noo soo waday sida maabka Sallo inta jeer meesha tuu meeshan waa markii saddexaad ee nimaado laakiin markii ugu dambeysay waa 2020 dhayladii ku xasuustay dhaylaa baan ku xunay waa salaamay meesha dhayla ku cuntidna ma iloodid miyaa salay annaga sheekho ma iloodin
dabaashuna waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee diinteenu boorisay bal saxaabadu radiyallahu calayhim oo ku yeeran jiray markaasi callimu awlaadakum as-sibaaxata wa rimaaya awlaadiina bara dabaasha iyo markaasi dhoogka saadalaadeed waxa loo baahan yahay mar walba inaan dabaasha barano dabaasha waa mid ka mid ah waxyaabaha qofku ku badbaadayo haddii qarqoon uu yimaado anigoo ah Cabdicasiis Cabdi kuna magac dheer Cabdicasiis 17 waxa weeyaan waxaan joognaa maanta badda Ceel Sheekh oo masaafo ahaan Hargeysa u jirta 80 kilomitir wax ku dhow 100 kilomitir anigu run ahaantii dabaasha waxaan ku bartay 8 jir magaalada Djibouti waan ku bartay fariinta aan waalidka u gudbinaya waxay tahay in ay baraan dabaasha ciyaalka si bari toole ay ugu badbaadaan oo waxa weeyaan bari ka maalin ay u noqdaan kuwa aanay baduhu aanay ku haligmin ama meel kastoo ay biyo ku jiraan badweyn bay dooniduna ila see dorkaysaa halka malab laygu daadshay waa baddaado Time is up, we don't have no luxuries. Touch my lip as I breathe for the two of us. Show me what you got, give me something more. Show me what you got, I need something else. hadda saacadu waa 3:00 saan maanta oo dhan gaariga uga saaraynay ma naan qadin hadda qadadiina loo keenay soo dhacay isagoo waxaan ku saafiya oo kii maraq lagu kariyo hilibkan waa hilib cadaan hilib cadaan baa hilibku laba uu kala baxaa xaniid iyo hilib cadde hilibkan waa hilib cadde When you're dancing on me, I'm beyond the new moon lazy, so full of love. I don't need nothing to exchange. saad arkaysaan badweynta dhexdeedii baanu soo galnay halkan iminka aynu marayno maxaa la yidhahdaa waa Ceel Sheekh badeedu waa biyihii madoobaa wey biyihii madoobaa halkaynu u soconnaa biyaha baaxaddaan galaynaa oo dalxiis baanu ku soconnaa meel magaalada tegi mayno biyaha ma dhex wareegaynaa nawaaxigaynu tegaynaa nawaaxiga badda soo maaha adigu ma naaquudihii baad anugu aan labadan dee yayna kaa kalo naaquudihii ma ninkanaa naaquudu naaquuda maxaa la yidhahdaa naaquuda waa dirawalka laashka wada darawalka laashka wada marka adaa ka naaquudaa imika anaa ka naaquuda adaa ka kabtana anaa ka kabtana waay nabad oo waxa weeyaan si taxadar leh noo wad kabtan waay badda agteedaanu isaga dabaalanay kadib waxaanu go'aansanay inaannu badda gudaheedana yara galno oo waxa weeyaan aan waqti fiican ku soo qaadanno waqtiga hadda waa 5tii iyo barkii waa waqtiga ay ugu quruxda badan tahay cadceeddu saad arkaysaan qorraxdu hadda way sii dhacaysaa waxaa lagu jiraa casarleeqa galabtii badweyntaan ku jirno cimilada markaad eegto cimilada hee caynkoodii oo kale ayaad ii cajabisa waa markii koowaad doon raaco baasha waa ka baqan jiray laakiin baashu waa macaanba marka miisaanka lagu fadhiisiyo shandhaxgan bay saareen shandhaxgan way isku fadhidaa xisaabtu adna naaquudii baa naaquudii jawigan oo kale waxaan ku xasuustay heestii ahayd badweynta haddaad ku maydho ma baaba'o ma baaba'o show jacayl hadda saacaddu waa 7 iyo barkii habeenimo waxa weeyaan baddii baan joognaa caawa oo dhan halkan aan ku caweynaynay halkan baan caaw dhiganay waxa weeyaan waa taa baddii waa madow halkan baan caaw dhiganay waxa weeyaan halkan ayaan caawa oo dhan isaga sheekaysanaynay imika waqtigii cashada la gaadhay waxa weeyaan hadda waan casho tegaynaa teeda kale tafaniga waxa weeye meeshan idinma joogto
magaaladan yar waa cidlo waa laga xagaabaxay qof bani aadama ma joogo waxa weeyaan dadkii tuuladan deganaay oo dhani magaalooyinka qabowga ayay aadeen saan waa waqtigii cuntada ayaa la soo gaadhay waa waqtigii cashada halkan waxaa laga cashaynayaa 8 habeenimo magaaladana waxaa laga cashayaa 10 iyo 11 halkan maxaa laga cunayaa waxaa laga cunayaa baasto nimanka tood waa yar VIP ba ma garanaya waxay ku kala duwan yihiin halkan waxa yaala hilibkii maantaan qayb dhiganay markaa waxaan ka samaysanay baasto iyo kalaankal waxaan ku yiri waa habaysane waa la cashaynaya in laga marin cashadana marka banaanka lagu cunayo wax ka macaan ma jirto u yeedha macabisada saasaa loo darsadaa baash markaad doonaysa inaad saa ma u wareejisay ameetan baa qaadi kara maaye waan iska yaraynayaa